محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي بان أمها النقيناء كلن كادينيد نغسو قيب قليي annakoo ka kala imana meelo kala duwan meelo kala fogfog waana tawfiiq ilaahay casa wajal qofkuu khayr la doono ayaa ilaahay meelahan oo kale ilaahay uu keenaa inaad diin aad ka hadashaa oo diin aad dhegaysataa oo meel diin lagu hadalhaya aad tagtaa adiga xaggaaga maaha waa xagga ilaahay waa inaan ilaahay dhammaanteen aan u mahadnaqno weeyaan oo nimanka walaalaheena akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inoogu yeedhay ayakana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay camalkooda inuu ka aqbalo ee miisaanka xasanaadkana ilaahay uu ugu daro kolley culammadu waynala hadleen waanaynala hadli doonaan diinta hadalkeeda oo dhanna wuxuu ku soo dhammaadaa waa ilaahay ka cabso ilaahayna cibaadadu inoo abuuray cibaadada qaayaheeguna waa alla ka cabsi yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaahay yidhi dadkao dhan baa ilaahay la hadlayaa wuxuu leey dadow ilaahayna abuuray caabuda ininkoo keliya maaha macal kuwii inaga horreeya adduunkan imidayna ilaahay unbaa abuuray khaaliqu waa mid keliya makhluuqu ha fara bataan oo ha nuucya bataan laakiin khaaliqu waa mid keliya cibaada ilaahay noo abuuray inaan isaga caabudno oon isaga ka cabsoonno oon isaga weynayno oon isaga jeclaanno cibaadada qofku markuu la yimaado waxau ka dhaxla waa alla ka cabsi alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj wma tafcaluu min khayrin yaclamuhu allah watazawaduu faina khayra zaadi taqwa xajkii axkaamtiisii baa ilaahay kaga soo warramay aayaddaas waxaa lagu soo gabagabeeyey xajka qaayihiisu waa alla ka cabsi cibaadada qaayaheegu waa alla ka cabsi soonka la soomayo qaayihiisu waa alla ka cabsi sadaqada la bixinayo qaayaheegu waa alla ka cabsi kulankaa diinada laynoo qabtay iyo culummada nawcadinaysa qaayuhu waa alla ka cabsi ilaahayna abuuray inaan ka cabsanno oon ka baqno unba adduunka laynoo keenay ummadii hadday dumaysana waxay ku duntaa waa markay ilaahay abuuray ay garan weyda ummadii way dumi ummad haddii la doono in la dhisana waxaa lagu dhisaa allihii abuuray baa dadka la baraa dad haddaad aragto dad ilaahay garanaya oo ilaahay jecel oo ilaahay ka cabsanaya oo ilaahay rajaynaya oo ilaahay rumaysan oo ilaahay mar walba inay raalli geliyaan ku dadaalaya haddaad aragto dadkaasi way dhismayaan dad haddaad aragta ilaahay aanan ka cabsanaynin weliba u malaynaya ilaahay inuusan arkaynin markay dunuubta ay samaynayaan waxaad ogaataa mujtamacaasi uu kudaayo uu dumay ka dhigan tahay lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddan markuu nebigeennu uu dhisaayey meesha uu ka soo bilaabay dhismaha dadka ayuu horta ilaahay baray taajirkiibuu ilaahay ku xidhay faqiirkiibuu ilaahay ku xidhay xaakimkiibuu ilaahay ku xidhay haweenkiibuu ilaahay ku xidhay dhallinyaradiibuu ilaahay ku xidhay
mujtamaca wuxuu nebi maxamed uu diyaariyuu hagaajiyey la dareengeliyey oo laga dhaadhiciyey ilaahay baa ku leh waxaad haysatana ilaahay baa ku siiyey waxaa kaa maqanee tabanaysana alla uunbaa kuu haya ilaahayna waa kuu jeedaa uu ku arkayaa uu ku maqlayaa ee ilaahay ka cabso innagu haddaan dadka luqada soomaaliga ku hadla aan nahay wadaad markuyna wacdiyeen uuna yidhahdo ilaahay ka cabso waxaa laga yaabaa jawaabta inaan keenna markiiba sunnaka ilaahay ka cabsanna ma ilaahay haddaan ka cabsoonayno been ma sheegneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno salaadu inama dhaafteen ilaahay haddaan ka cabsoonayno dulmi ma geysaneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno dadka ma xamaneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno ummadda iskuma dirneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno dhallinyaradu siday rabto uma socoteen sida ilaahay rabaan u socon lahayn haddaad ilaahay garanaysid waxaad ogaan lahayd macaasi kuma dhacdeen cabsida ilaahay waa freem gaadhigu hadduu bilaa freem uu noqdo meel walba uu jiidhi qofku hadduu alla ka cabsi uunan lahayn meel walba uu jiidhi taqwadda ayaa nolosha bini aadanka qurux badnaysa waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra qofalii qofka ilaahay ka cabsadee rabbigii ka baqa nolosha dhanba ilaahay waxuu uga dhigayaa fudayd buu ilaahay uga dhigayaa maanta dad badan baa nolosha ka cabanayo le nolosha waa nagu adayg waxa nolosha adkaynaya waa iimaan la'aan waa alla ka cabsi la'aan waa diinta oo laga dheeraadaa nolosha ku adkaataa hadday dadku ilaahay abuuray u dhowaadaana ilaahay xidhiidh fiican la yeeshaan oo ilaahay casa wajalla ay ka cabsadaan nolosha inta kaleo dhanna way noo dhib yaraan qawaamu dunya arbaca cilmu alculamaa وعدل الأمراء وسخاء الأغنياء ودعاء الفقراء لولا علم العلماء لهلك الناس بالليل لهلك الجهال ولولا عدل الأمراء لأكل بعضهم بعضا ولولا سخاء الأغنياء لهلك الفقراء ولولا دعاء الفقراء لهلك الأغنياء adduunka dhanba waxay culimmadu yidhahdeen afar bay ku taagan tahay afar tiir cilmiga culammada iyo cadaaladda madaxda iyo deeqsinnimada dadka